إلهي وحده سبحانه وتعالى قفك سجدك حقها وكرمي ومكرمي مركا درسي لما تعين كامها النقط من قضية سكوساسية والسكوساسية هي أمر الدار وأمر بنو إسرائيل بيت المقدس أي حريان هي بلنتها لرجلي أي درسي قولن كوساسية هي وما تقول هاي كجاه الله يا إله سبحانه وتعالى يدعم ولقد أخذ الله إلهي وقبطي أو قاضي ميثاق بني إسرائيل ريب بنو إسرائيل بلنتوذي لا تلقوا أتكيب إلهي قاضي وبعثنا وحان كسو صارني منهم حقوضا 12 نقيبا لبئية طبان بلداجية أيان كسو صارني وقال الله إلهينا وحويري إني أنيكم معكم إنك معينا أنا حيوان إذين قرقاريا لئن أقمتم الصلاة صلاة هداد أوكتان وآتيتم الزكاة الزكاة آت بحسان وآمنتم بالرسل رسول شيطان آت رميسان وعزرتموهم رسولنا آدو قرقارتان وأقرضتم الله إلهي آدين نسان قرضا دين حسنا أو وناكسا لأكفرن وان بابئن عنكم حقنا كبابئن سيئاتكم حمايالكنا ولا أدخلنكم وحان إذن جرين أون إذن جرين جنات جنوين كاسو تجري أي قلقلي من تحتها جنوين كهوستوضا الأنهار وبيال أي قلقليان فمن كفر قفكي قالوا بعد ذلك كاغا كذب قفكي قالوا منكم حقين حالو كاهضي فقد ضل قفكا سيوور لمي سواء السبيل جدك توصن سحضا وكر لمي فبسبب نقضهم برنتوذا السبب كيد ميثاقهم بلنيال كوذي أي بريين يلعناهم بنو إسرائيل لعنضني وجعلنا وحاكا يلي قلوبهم قلوب توذين وحاكا يلي قاسية مدقل رمباكا يلي يحرفون الكلمة كلمويك أيي الليحين هيان عن موادعه كلمة ميله هذا أيك الليحين هيان معنيه اللوغو تنقلي معنى أنا هاي بيقول الليحين هيان أما ويبتر هيان با والنسو وحيها المامين حظا نصيب بيها المامين حظ غاسو مما كي حقي سكاء هذي ذكروا لغوانيي أولا أمري به ماغا ولا تزال النبي محمد وكزول ميسد تطلع إنا طالعا أود أركي على خائنة على خيانة إنا أركيسد خيانة غاسو منهم حقو ذكاء إلا قليلا إن يرمو يعني ومنهم يجا حقودا كأهاضي فاعفوا عنهم اسكعفي واصفح اسكجنا جيسو إن الله إلهي يحب وحج عليهي المحسنين ددك وناقة سمية أي إلهي جعل سبحانه وتعالى نمانكي بلانتها مركو إلهي لقري اللبية طبانكا أضينا لغسو ساري لبية طبانكي أضيبو نبي موسى كحيث عليه الصلاة والسلام وحال آذي بيت المقدس إيا دولكي أي نمكا كنعانيين أي دقنايين بال آذي مركا لقود لواذي أيو النبي موسى كهري عليه الصلاة والسلام إيا قيبو دلي أو وحوجي لأرض أردح قنا وبالحالة هذا السوء هذا كابك أيهين سيدا أي أنوليهين أو دودو انتي تهي dhexgara oo soo ogaadu nabi Muuse yiri waxa aad soo aragtaana qof aniga aan ahayn uma sheegi kartaan buu nabi Muuse alayhi salaam 12 nin way baxeen nimankii bay dhexgaleen way arkeen nimankuna waxay ahaayeen de nimankii reecaad bay baqiyadoodii ahaayeen dad aad u waaweyn oo cirka dhinac ka qarin bay ahaayeen markay arkeen waxa qalbigooda galay inayna dadkan iska celin karin in la dagaali karin warkii marka nabi Muuse uu yiri cidna yaan loo sheegin way ka baxeen ilaa 2 nin mooyaane
tobankii kaleba dadkii banu israa'iil way u sheegeen arrintii oo waxay yidhaahdeen dad lala dagaali karo iyo dad la iska celin karo iyo dad aynu wax ka tari karno midna meeshan ma joogaan bay yidhahdeen tiibuu marka ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ballantii ay ka baxeen darteed baan u lacnadnay buu yidhi waa iyaga yidhi meeshan aan fadhinhaynaaye nabi muusew adiya ilaahagu la dagaal kuwan lama dagaali karre balada u fiirso fa bimaa naqdihim fa bisababi naqdihim burinteeda sababkeed miithaaqahum ballanyaalkooda ay buriyeen yaan lacannaahum reer banu israa'iil lacnadnay fa bimaadu lacannaahum tay ku tacalluqi min jihati naxwa wajacalnaa waxaan ka yeelay quluubahum quluubtoodiina waxaan ka yeelay qaasiyatan mid qallashay oon iimaanka aqbalaynin yuxarifuuna xaal ay leexinhayaan alkelima kelimada ay leexinhayaan can mawaadicihi kelimka mawaadicdiisa ay ka leexinhayaan oo kitaabkii towraad ahaa kelimadu waa towraad maante kitaabkii towraad yay sidii loogu talagalay si aan ahayn u dhigeen wax alla wixii nebi moxamed tilmaantiisa ka hadlayay way tireen aayadihii rajmiga iyo cuquubaadka ka hadlayeyna iyagana meeshay ka saareen yuxarifuuna alkelima can mawaadici macnaheedu nooca wey wanasuu waxay halmaameen xadan nasiib bay halmaameen xadigaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday dukiruu la amray bihi maaga waa amar maanta dukiruudaasi wixii la amray oo ah kitaabka towraad inay qaataan oy ku dhaqmaan oo axkaamtiisa ay ilaaliyaan way halmaameen walaa tazaalu ka zuuli maysid nebi moxamedow tadalicu inaad daalacan oo aad arki calaa khaa'inatin calaa khayaanatin khayaanad dusheed inaad arkaysid ka zuuli maysid calaa khaa'ina ay calaa khayaanatin wey khayaano inaad arkayso yahuudan aad khayaano ku arki ka zuuli maysid walaa tazaalu ka zuuli maysid nebi moxamedow tadalicu inaad daalacan calaa khaa'inatin calaa khayaanatin inaad daalacan oo minhum iyaga xaggooda ka ahaatay ilaa qaliilan in yar mooyaane oo minhum iyaga xaggooda ka ahaaday ee facfu canhum iska cafi wasfax iskana dhaaf in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka iyo wanaagga sameeya ayuu ilaahay jecel yahay iska dhaaf wa akhadnaa waxaan ka qaadnay min aladiina kuwii xaggooda waxaan ka qaadnay qaaluu yidhi innaa anaku nasaaraa baan nahay miithaaqahum ballankoodii baan ka qaadnay fa nasuu iyaguna waxay halmaameen xadan nasiib bay halmaameen xadigaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday dukiruu la amray bihi maaga fa aqraynaa waxaan ku ridnay baynahum dhexdooda waxaan ku ridnay alcadaawata baan ku ridnay cadownimo ayaan baynkooda ku ridnay walbaqdaa'a isnicidna baynkooda waan ku ridnay iyo isu cadhoosho ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaadhana ay isu cadhoodaan wasawfa yunabbi'uhum allahu ilaahayna wuxuu u sheegi doonaa bimaa shayga kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeyo sameeya alla wuxuu leeyahay kuwa yidhi nasaaraan nahay oo ilaahay baan u gargaarnay kuwa yidhi nasaaraan nahay oo ilaahay baan u gargaarnay kuwa yidhina ballankoodii baan qaadnay oo ballanku muxuu ahaa ilaahay inay adeecaan buu ilaahay kula ballamay rususha inay raacaanna ilaahay wuu kula ballamay subxaana wa tacaala sida reer banu israa'iil ilaahay uu ugula ballamay inay ilaahay adeecaan rusushana ay raacaan yaa kuwa yidhi nasaaraan nahayna ilaahay uu ugula ballamay inay ilaahay adeecaan rusushana ay raacaan iyaguna marka wixii la amray way halmaameen wixii la amray way halmaameen say reer banu israa'iil u halmaameen iyo iyaguna u halmaameen ilaahay wuxuu yidhi markay sidaa yeeleen yaan cadowtinimo iyo cadab baynkooda ku ridnay walidaa nimanka nasaaro la yidhaahdaay ee nasaarada sheegta
ee sheegta inay nabi ciise uu nabi u yahay kuwa sheegta waa dadka isugu nacib waxa koonka dushiisa ku nool waxay isu laayaan kaniisad bay isu laayaan intaa oo kaniisado oo wada kala mabda'a ayaa dhexdooda ka furan iyaga unbaa ishalaaga iyagaa isdhammeeya iyaga ayaa isugu daran addoommada ilaahay baa cadownimo dhexdooda ku riday markii ay wixii lagu waaniyey ay halmaameen oo amarkii ilaahay ay ka tageen yuu ilaahayna cadaawad dhexdooda dhigay wa min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa anaku nasaaraa baan nahay akhadnaa waxaan qaadnay miithaaqahum baan qaadnay ballanyaalkoodii dhaarta lagu adkeeyey baan qaadnay fa nasuu waxay halmaameen xadan nasiib bay halmaameen xadigaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday dukiruu lagu waaniyey bihi maaga fa aqraynaa waxaan ku ridnay baynahum dhexdooda waxaan ku ridnay alcadaawata cadownimo iyo walbaqdaa'a isu caroosho ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaadho wa sawfa yunabbi'uhum iyaga wuxuu u sheegi doonaa allahu ilaahay bimaa shayga kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sameeya yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabkiyow yahuudiya nasaara qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkanagiibaa idin yimid oo idin soo gaadhay muxamed aha yubayinu xaaluu caddaynhayo lakum idinkana uu idiin caddayn kahiiran wax badan oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday kuntum aad ahaateen tukfuuna kuwa qariya oo min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka ahaaday kitaabka aad haysataan ee la idinku soo dejiyey towraad iyo injiil wax badan oo aad qariseen buu idiin caddayn wayacfuu weliba wuxuu iska cafin uu iska dhaafi can kahiirin wax badanna oo aad qariseenna wuu iska dhaafi oo idin fadeexadayn mahayo idiin wada sheegi mahayo waxaad qariseen waxa lagama maarmaankaan buu idin sheegayaa qad jaa'akum waxaa idin soo gaadhay min allaahi ilaahay xaggiisa waxaa idinka soo gaadhay nuurun kitaab qur-aanah iyo wa kitaabun kitaab waa cadfu tafsiireh kitaabkaasoo mubiinun wax walba caddaynhaya qad jaa'akum waxaa idin soo gaadhay min allaahi ilaahay xaggiisa waxaa idinka soo gaadhay nuurun nabi muxamed iyo wa kitaabun kitaab qur-aana kitaabkaasoo mubiinun wax walba caddayn waa laba tafsiir oo labadoo lagu fasiray alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ahlu kitaabkiyow waxaa idin soo gaadhay oo idiin yimid rasuulkanagii muxamed ahaa wuxuu idiin caddayn wax badan oo aad qariseen oo labadii kitaab ee towraad iyo injiil ku qornaa ayuu idiin caddayn saan buu nabigu ugu caddaynayay wax walba calayhi salaatu wasalaam rajmiga markii la gaadhay ee nabi muxamed uu yidhi war maxay diintiinu ka qabtaa rajmiga waxay yidhaahdeen waxba kama jiro towraad kuma qorna yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bal soo qaada towraad soo qaada yahuudigii towraad soo qaaday ayuu nabigu yidhi akhri markaasuu meeshii rajmiga aayadihii rajmiga ayuu gacanta saaray intii ka horeysayna wuu akhriyey intii ka dambaysayna wuu akhriyey cabdullahi ibni salaam baa wuxuu yihi nabigii ilaahayow meesha uu gacanta ku hayay aayadahaasu ku qoran yihiin ee gacanta meesha ka qaade saasuu marka dhaqankoodu ahaa nimanka badxun bay ahaayeen marka nabigu wax badan ooy qariyeen buu u caddeeyey inuu jiro taasina waxay tusinhaysaa nebi muxamed rasuulnimadiisu inay xaq tahay ayay tusin waa mucjizo ilaa nebi muxamed ummi buu ahaa waxba muuna akrinaynin nabigu haddana sidaa ay tahay towraad waxa ku qoran buu nabigu u sheegi jiray oo uu dhihi jiray towraad soo saasi kuma qorna markay yidhahdaanna soo qaadu dhahaya nabigu calayh isalaatu wasalaam saasuu marka ugu caddaynhayey marka wax badan oo ay qariyeen buu sheegay waa wixii lagaba maarmaanka ay ahayd inuu sheego sifaadkiisa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay towraad meelahay kaga qoran tahay nabigu aayadahan xuduudda ilaahay ka hadlina wuu caddeeyey laakiin waxyaabihii lagaba maarmaanka aan ahayn oo ay qariyeen nabigu wuu iska dhaafay ilaa nabigu inuu fadeexadeeyo
ما وندون إنه النبي محمد الضوء ماذا إلهي قف هذا يا ما وناهين وحي لقوا مارمانا أنبو عدين هيي يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب كيو قد جاءكم وحائدين يمد رسولنا رسولك النبي محمد بائدين يمد يبين حال عدين لكم إذنك كثيرا وحبضا إذن عدين ومما كي حقي سكا هذي كنتم هاتين تخفون قوة قرية من الكتاب كتاب كحقي سكا قرية وتوراة إنجيل ويعفو النبي وحو إسكا عفين أو إسكا دافي عن كثير وحبضا أيو نبي إسكا دافي قد جاءكم وحائدين يمد من الله إلهي حقيس وحائدين كيمد نور النور ونبي محمد وكتاب نوئذين يمد كتاب كاسو مبين حق عدين هيا وتفسير علماء أي كفسرين نور تا قرآن كان والله فسري نبي محمد والله فسري عليه الصلاة والسلام يهدي وحنون به أي بسببه كتاب كسبب كيس الله إلى يهدي وحوك هنون به أي بسببه كتاب كقرآن كالسبب كيس الله إلهي من قفك اتبع الراعي رضوانه إلهي رالي أهانشه سراعي سبل السلام نبت جليد الجدد كيدو كتاب كسبب كيس إلهي قفك ردي سراعي وهنون هيا ويخرجهم الله وكساري إيجا من الظلمات ظلمات كحق كساري إلى النور بنا أساريا بإذنه إلهي إذن كيسونا مقديانك كساري أو نورك وغساري ويهدي كتابك وهانون هم إيجا إلى صراط جد بكوهانون جد كاسو مستقيم توصن كتابك قرآنك وحو أدونك وكوهانون قفك إلهي رده سراعي إلهي إيمانك أوسي كتابك قرآنك وحو كوهانون جدك النبت قليا النار تلقى بدبادي إلا نقف النار قلياي ما أوسن بدادين أو ودن نبت قليا ما أونا مرين وليبا ظلماتك أيو كتابك أدومك كساري نورك أساريا إلهي إذن كيس إذن كإلهي أيو كتابك وقفك أنتو مقدقة كسارو ينورك أساريا جد أو مستقيما وكتو سنهيا يهدي وهنون به أي بسببه كتابك قرآن كأسبب كيسا الله إلهي من قفك يهدي وحوك هنون لما مفعول بيقاضا يهدي وحوك هنون به أي بسببه كتابك قرآن كأسبب كيس الله إلهي من قفك اتبع راعي رضوانه رالي أهانشه سراعي سبل السلام نبت جليدا ودوين كيدو كهانون ويخرجوا وصاريا هم إياغا من الظلمات بو كساريا إلى النور بونا أساريا بإذنه إلهي إذن كيسا ويهدي وهانون هم إياغا إلى صراط بو كهانون جد كاسو مستقيم توصن لقد كفر ويجالوا بين الذين كوا قالوا يري إن الله إلهي هو إسوا المسيح مسيحي ابن مريم والكذا قل وحد هذا النبي محمد فمن قف كما يملك هنن من الله إلهي حقي سنة كهنا شيئا شيء إن أراد إلهي هدو دونو أن يهلك إنه هلاغو المسيح إنه هلاغو ابن مريم أها وأمه نأو هلاغو ومن نأو هلاغو في الأرض دلك كسوغا جميعا دمان ولله إلهي بؤو هذا ملك سماوات كملك غوضا إيا والأرض دلك إيا وما بينهما وحو دحيبا يخلق إلهي وحو أبوريا ما يشاء وحو دونو إلهي أبوريا والله إلهينا على كل شيء كستقدير كي أبو الله وحو ليهي ويقالوا بين كوير مسيح وإله ويقالوا بين إلهي بوحو يري هدوب إلهي مسيح إيهو يدي يوحى لك كسوغان أو لن أوهلاغو يا وحكا تركرا إلهي وفعال لما يريد
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يا إلهي كتب هذلك سبحانه وتعالى كوا يري مسيح وحين نري وانا نيستي النبي عيسى عليه السلام أما اللقب كي نبي عيسى درسي هرماني كي نسوي نيرك مسيح سقل ذنبو عربكو إيغا قد عي مرا وحوغا مراجعة سمين هي مسيح واللقب عرب كيغا قد عضي مركانا وحانو جيدي نانيس بانو جيدي وكيو أي عرب كيغا قد عضي سحنا معها مسيح ونانيس وي أما اللقب دال عربي دهدي دول مكارب تدو نانيس تميشان ربينا كدهان إلي وكيو منا أساس مسيح واللقب كا نبي عيسى عليه السلام إذن كوا يري مسيح وإله ويقالوا بين إلهي هدو ربو إلهي هدو مسيح إيهو يدي إيهو وحدولك جوغو أردن هدو دمعينو هلاغو ياكي عيرين كرا مجرتون ياكي عيرين كرا مجرتون لقد كفر ويقالوا بين الذين كوا قالوا يري إن الله إلهي هو المسيح وهي ابن مريم معها ويقالوا بين قل وحاد هذا النبي محمد فمن قف كيبا يملك هنن من الله إلهي حقيس شيء قف كيبا كهنن إن أراد هدو دون الله أن يهلك إنو هلاغو المسيح إنو هلاغو ابن مريم معها وأمه نو هلاغو ومن نو هلاغو في الأرض دلك كسوغا جميعا دمان ولله إلهي بو هذا ملك السماوات كرهان شهودا يا والأرض دلك يا وما بينهما لبدا وحا ودخيا يخلق إلهي وحو أبو ريا ما يشاء وحو دون إلهي أبو ريا والله إلهينا على كل شيء كستقدرك أبو ذوي. وقالت اليهود يهودي وحي هذين إيا والنصارى نحن أنك أبناء الله إلهي ولشي سيمان نحي وأحباؤه إلهي كو جعلام نحي قل وحد هذا النبي محمد فلما يعذبكم إلهي محوئذين عذابي هداد علمه ستهين بذنوبكم دنبيالكين سبب كود محو إلهي إذنكو هلاقي بل أنتم إذنكو بشر باتهين بشر كاسو ممن دول كأهضي خلق إلهي وأبوري يغفر إلهي وحو الدنب النافي لمن يشاء قفكو دونه ويعذب إلهي وحو عذابيا من يشاء قفكو دونه ولله إلهينا وحاء هذي ملك السماوات كملك جودا يا والأرض دلك يا وما بينهما لبضا وحا ودخيا وإليه إلى الله إله إنتي كأبونا هذي المصير مرجعون. يهودي النصارى وحي هذين أبناء الله بانهاي إلهي ولشي سيمان نهاي بيد هذين بل إذا بدراسي أنت إله تعيفيري إلهي كوي وجعلابا نهاي بيد هذين إلهي ذا وحوله النبي محمد وحاد هذا حداد إلهي ولشي ستهين إلهي محود دنبينا يدكو عذابي ما أبا الماء ولا لي عذابه معناه فيس معناها بيش كجرا أبو الماء ولا لي ميو عذابه إذا كدم بيجينا محل يدكو عذابي أو داير يضافر الله إذا كدقي محا ساعقده إذا كل عضي محل إذا هلاقي حداد إلهي ولشي ساعتهين ما حصل إذا كل قليل ودكتهين إن أنا ما كل عينه ما أضيبه ولشي هلاقه أو داير يضافر كدقي إلهي وحيري بشر باتهين الضوء مخلوقات كإلهي وأبو ريبان كمتهين إلهي ولشي سمتهين وحاتهين مخلوق إلهي أبو ريباتهين الله سبحانه وتعالى قفكو دونه وودن بدافيا قفكو دونه إلهي وعذابيا سماوات كإيا رلك إيا وحا أدحيانا إلهي باسكال سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يهودي وحيتري إيا والنصارى نحن أنكو أبناء الله إبان نهي إلهي ولشي سيبان نهي وأحباؤه إلهي كو جعلانا وان نهي. قل وحاد هذا النبي محمد فلما يعذبكم ألا محوئذين عذابيا
bidunuubikum dunuubtiina sababkeed ilaahay muxuu idinku cadaabi bal antum idinku basharun baa tihiin basharkaasoo miman ka ahaaday khalaqa ilaahay uu abuuray yakfiru ilaahay wuxuu u dhaafayaa liman yashaau qofkuu doono wayucadibu ilaahay wuxuu cadaabayaa man yashaau qofkuu doono welilaahi ilaahay buu u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka lahaanshahooda iyo walardi dhulka iyo wamaa baynahumaa labadaa waxa u dhexeeya wa ilayhi ilaahay intii ka abuuna u ahaaday almasiiru marjicuu yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabkiyo yahuud iyo nasaara qad jaa'akum waxaa idin soo gaaray oo idin yimid rasuulunaa rasuulkanagiibaa idin yimid yubayinu xaal uu u caddaynhayo lakum idinka sharaa'ica diin diinka sharaa'icdiisa uu idin caddaynhayo calaa fatratin kala go dushiis xaal aad ku sugan tihiin fatradaasoo min arusuli rususha xaggeeda ka ahaatay an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan dhihin darteed maa jaa-anaa nooma imanin min bashiirin wax noo bishaareeya walaa nadiirina nooma imanin si aydaan saa u dhihin yuu ilaahay nebi moxamed u soo diray faqad jaa'akum waxaa idin yimid bashiirun mid bishaarayn baa idin yimid wa nadiirun mid digi baa idin yimid wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta dushiisa qadiirun kii awooda wey nabi ciise iyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa u dhaxeeyey muddo ayaa u dhaxaysay 500 iyo wax la jiro oo sano ayaa u dhaxaysay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nabi ciise ilaahay baa marka wuxuu leeyahay ahlu kitaabkiiow rasuulkaygii moxamed baa idin yimid wuxuuna idin caddaynhayaa sharaa'ica diin ayuu idin caddayn weliba wuxuu idin yimid iyadoo fatra rusushii waxoogaha la kala gooyey oo muddo dheer waa muddada ugu dheer ee rususha dhexdooda gashay canigii nabi ciise iyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam 500 iyo wax la jira oo sano ayaa u dhaxaysay marka iyada oo fatradaasi marka ay jirto yuu ilaahay nabi moxamed soo diray muxuu ilaahay u soo diray wuxuu ilaahay u soo diray nabi moxamed inaydaan ku marmarsooyin maalinka qiyaamo oo aydaan dhihin wax noo diga oo cadaab nooga diga wax noo bishaareeya oo janniya ridaha ilaahay noogu bashaareeya ma aanaan arkin si aydaan marmarsiinyahaas u helin ayuu ilahay idinku soo diray subxaana wa tacaala yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwa ehelka u ahow qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulkanagiibaa idin yimid yubayinu xaal uu u caddaynhayo lakum idinka sharaa'ica diin mafcuulkiibaa go-ane calaa fatratin kala go dushiis xaal aad ku sugan tihiin oo fatradaasoo min arusuli ka ahaatay an taquuluu lianlaa taquuluu waan dhihi karnaa an taquuluu karaahiyata an taquuluu mid kale rataad soo qadaraysaa an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan dhihin darteed buu ilaahay rasuulka idinku soo diray maa jaa-anaa nooma imanin min bashiirin mid noo bishaareeya iyo walaa nadiirin mid noo diga midna nooma imanin faqad jaa'akum waxaa idin yimid bashiirun mid idin bishaarayn oo qofkii ilaahay adeeca janno ugu bishaarayn wa nadiirun qof digi oo qofkii ilaahay beeniya cadaab uga digaya wallahu ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta qadirun kii awoodo nabi muxamedow id waqti qaala muusaa nabi muuse uu yidhi liqowmihi tolkii uu u yidhi yaa qowmi tolow udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiinna uu idiin nicmeeyey id waqtina uu idiin nicmeeyey jacala uu yeelay fiikum dhexdiinna ambiya uu yeelay oo wajacalakum uu idinka yeelay muluukan boqoro oo wa aataakum alla uu idin siiyey maa shay lam yu'ti uuna siinin axadan axadkaasoo min alcaalamiina caalamiinta xaggooda ka ahaaday nabi muuse qoomkiisa ku yidhi markii uu nabi muuse reer banu israa'iil uu camaaliqada nimankii la dhihi jiray kancaaniyiintii marka uu rabay inay la dagaalaan
oo baytulmaqdis ay ka xoreeyaan ayaa nabi muuse wuxuu yidhi reer banu israa'iilow tolkayow ilaahay nicmadiisa xusuusta ilahay idin nicmeeyey oo maxay tahay nicmadaas ambiyada ugu badan reer banu israa'iil baa laga soo dhex saaray inta nabi reer banu israa'iil laga soo saaray ummad kale oo laga soo saaray ma jirto ilaahay wuxuu idinka yeelay boqorro ayuu idinka yeelay maxaa yeelay mar walba oo nabi ilaahay uu soo diray subxaanahu wa tacaala boqorna wuu la socon jiray qoyskaas boqorna waa loo samayn jiray nabiguna wixii diin ah ayuu ku maamulayay boqorkuna xagga hoggaanka kale ayuu isaguna hogaaminayay ilaahay marka wuxuu isugu daray ambiyo iyo boqorro ayuu ilaahay isugu daray subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay idin siiyey buu yidhi nabi muuse wax una ummad kala siinin oo muxuu siiyey markuu tiihu ku dhacay allah subxaanahu wa tacaala muxuu u soo dejiyey manni iyo salwo ayuu ilahay u soo dejiyey markay tiiha ku jireen ilaahay daruur buu dul saaray qoraxda ka celis waa nicmo oo ilahay nicmooyinkiisa ka mid a war bal waxaa xusuustu lehay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wadkur sheeg nabi muxamedow id waqti qaala uu yidhi muusaa nabi muuse liqowmihi tolkii uu yidhi yaa qowmi tolow udkuruu xusuusta nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiina uu u nicmeeyey id waqtina uu idiin nicmeeyey jacala alla uu yeelay fiikum dhexdiinna ambiyaa ambiya uu yeelay oo wajacalakum uu idinka yeelay muluukan boqorro oo wa aataakum alla uu idin siiyey maa shay lam yu'ti uuna siinin axadan axad uuna siinin axadkaasoo min alcaalamiina caalamiinta xaggooda ka ahaaday yaa qowmi tolow udkhuluu gala alarda ardada gala ardada almuqadasata la dahiray waa qibladii ambiyada allatii ardadaasoo kataba allaahu alla uu qoray lakum idinka uu idiin qoray inaad degtaan walaa tartaduu ha noqonina calaa adbaarikum gadaalyaalkiinnii oo gaalnimadii ah ha ku noqonina oo fatanqalibuu aad gadoontaan khaasiriina xaal aad tihiin kuwa khasaaray aad idinkoo khasaarsan marka aad gadoontaan nabi muuse wuxuu leehay tolow waxaad gashaan alarda almuqadasa gala xoreeya nimankan hadda haysta ee gaalada ah ee kancaaniyiinta ah ka xoreeya saasuu yidhi ardadaana allah subxaanahu wa tacaala idinkuu idiin qorayba inaad degtaan ilaahay baa idinka idiin qoray inaad degtaan laakiin gaalnimada ha u noqonina ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu qoray dee inta iimaan kale ayuu ilaahay ugu talagalay inay degaan laakiin yahuudi gaal ah inuu yidhaahdo baytulmaqdis anaa leh oo anigu ilaahay iigu talagalay inaan deganaado waa dulmi wey ilaahay baa idiin qoray haddaad iimaanka ku sugnaataan inaad baytulmaqdis aad degtaan laakiin haddaad ridowdaan oo aad gadaashiinnii u noqotaan arrinta markaa yani ballanka kuma jira inaad deganaataan yaa qowmi tolow udkhuluu gala alarda ardadii gala ardadii almuqadasata la dahiray allatii ardadaasoo kataba allaahu alla uu qoray lakum idinka uu idiin qoray inaad degtaan walaa tartaduu ha ridoobina oo ha laabanina calaa adbaarikum gadaalyaalkiinnii oo gaalnimadii ah ha ku noqonina oo fatanqalibuu aad noqotaan khaasiriina idinkoo khasaaray oo khayrkii adduunyada iyo khayrkii aakhara labadaba idinkoo khasaaray aad markaa noqotaan qaalo waxay dhaheen yaa muusaa nabi muusow inna fiihaa ardada muqadasada ah dhexdeeda waxaa ku sugnaaday qowman qoom baa ku sugnaaday qoomkaasoo jabbaariina waaweyn oo wax jejebiya wa innaa anaku lan nadkhulahaa ardada muqadasada ah ma gelayno xataa yakhrujuu ilaa oo ay ka baxaan minha xaggeeda ay ka baxaan fa in yakhrujuu haddii ay baxaan minha ardada hadday ka baxaan fa innaa anaku daakhiluuna markaasaan gelaynaa bal waxay ku jawaabeen fiiri waxay dhaheen muusow baytulmaqdis waxaa jooga dad waaweyn oo wax jejebin haya waa sida marka uga muuqatay ilaan iyagu qalbigooda ducfiga iyo gaalnimada ku jirta ma fiirin hayaanee jismigoodan kore un bay fiiriyeen markaasaa waxay idhaahdeen
ardada muqadasada ah waxaa ku sugan qolo waaweyn annakuna geli mayno ilaa ay ka baxaan hadday ka baxaan aan gelaynaa bay yidhahdeen saasay yidhahdeen qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen waa 12 labadii ka soo hadhay qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday yakhaafuuna ilaahay ka cabsanayay rajulaankaasoo ancama allaahu ilaahay uu u nicmeeyey calayhim dushooda udkhuluu u gala calayhim kuwan aad sheegaysaan u gala albaaba magaalada albaabkeeda uga gala faidaa dakhaltumuuhu albaabka markii aad gashaan fa inakum idinku gaalibuuna waad ka adkaanaysaan wa cala allaahi ilaahay un fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumaynaya 12 naqiib 10 cabsi buu ilaahay ku riday amarkii nabi muuse iyo amarkii ilaahayna way khilaafeen warkii uu nabi muuse yidhi qariya mayna qarinin ee reer banu israa'iil bay dhex ordeen markaasaa waxay yidhaahdeen meesha awood loo heli mahayo waa kuwa nabi muuse leh nimanka haddayna ka bixin annaku meeshaa ma gelayno labadii marka iimaanka ilaahay ugu nicmeeyey ee ka soo hadhay ayaa waxay yidhahdeen war fulaynimada iska dhaafa magaalada qudus ee ay ku jiraan albaabka uga galay yidhahdeen markaad albaabka magaalada gashaanna waad ka adkaanaysaan waxaan jurmigooda kale ha fiirinine waa gaalo oo qalbigoodu waa daciif ilaahayna tala saarta waa labadii nin ee ka soo hadhay qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday yakhaafuuna ka cabsanayay ilaahay ka cabsanayay qaala waxay yidhaahdeen rajulaani laba nin oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday yakhaafuuna alle ka baqayay rajulaankaasoo ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhimaa dushooda uu u nicmeeyey ayaa waxay dhaheen udkhuluu calayhim lbaaba war albaabka uga gala faidaa dakhaltumuuhu albaabka markaad gashaan fa inakum idinku gaalibuuna waad ka adkaanaysaan wa cala allaahi ilaahay dushiisa uun fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa ilaahay rumayn haddaad tihiin qaaluu waxay dhaheen yaa muusaa nabi muusow innaa anaku lan nadkhulahaa ardadaa muqadasadaa geli mayno abadan weligano maadaamuu inta ay ku sugan yihiin fiiha ardada dhexdeeda inta ay ku sugan yihiin fadhab tag anta adiga iyo wa rabbuka ilaahaagu oo faqaatila la dirina ina anaku haahuna halkan aan qaaciduuna fadhinhaynaa adiga rabbigaaga bal u fiirso aniga akhlaaq xumaday ka mid tahay ilaahay bay iska leexin hayaanoo nabi muuse iyo ilaahay unbay israacin bes waxay yidhaahdeen muusow weligano magaaladaa geli mayne adiga ilaahaagu taga oo la soo dagaala yidhahdeen annaku meeshan aan sii fadhinhaynaa qaaluu waxay dhaheen yaa muusaa muusow innaa anaku lan nadkhulahaa baytulmaqdis geli mayno abadan weligano maadaamuu fiihaa inta ay nimankaas jabbaariinta ay ku sugan yihiin ee fadhaba tag anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaa oo faqaatilaa la dirira ina anaku haahunaa halkan aan qaaciduuna fadhinhaynaa qaala wuxuu yidhi nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu laa amliku gacan kuma hayo ilaa nafsii naftayda iyo wa akhii walaalkii haaruun mooye cid kale gacan kuma hayo ee fafruq ilaahayow kala bixi baynanaa beynkanaga iyo wa bayna alqowmi qoomka beynkiisa qoomka alfaasiqiina ee faasiqiinta ilaahayow aniga kuwana kala saar buuri nabi muuse alayh isalatu wasalaam wuu ka quustay inay iimaan qaataan oo ilaahay amarkiisa ay ku socdaan buu ka quustay nabi muuse markaasaa wuxuu ihi ilaahayow aniga walaalkay aniga naftayda iyo walaalkay naftiisa un baan gacan ku hayaa wax kale gacan kuma haya ilaah kuwana kala saar buuri maanta nabi muuse calayhi salaam qaala wuxuu yidhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu laa amliku ma hanan hayo ilaa nafsii naftayda mooyaane iyo wa akhii walaalkay ee fafruq kala saar baynanaa beynkanaga iyo wa bayna alqowmi qoomka beynkooda alfaasiqiina faasiqiinta ah
qaala alla wuxuu yidhi fa innahaa ardada muqadasada ah muxaramatun waa laga xarimay calayhim dushooda 40 sanatan baa laga xarimay 40 sano yatiihuuna xaal ay wareersanaan hayaan fil ardi dhulka dhexdiisa ay wareersanaan hayaan ee falaa ta'sa ha u tiraanyoonin oo ha u walwalin cala alqowmi qowm dushiisa ha u walwalin qoomkii alfaasiqiin ee faasiqiinta ahaa ayadda xikmad weyn baa ku jirta xikmaddaasi waxaa weeye qofka haddii la addoonsado oo istibcaad lagu sameeyo la addoonsado qalbiga iyo nuxurka ayaa ka dhiman weligii inuu wax iska celiyo ku fikiri mahayo marka nimankan lagu magacaabo reer banu israa'iil fircoon baa addoonsaday fircoon baa cadaabay waxyaabo aan ibnu aadam lagu samayn karin buu ku sameeyey cabsidii iyo fulaynimadii ay markaa qaadeen baa weligood ku jirtay ilaahay marka wuxuu ku talagalay 40 sano ay istaba wareegayaan inay baaba'aan kuwa uu fircoon addoonsaday jiilka cusub ee 40 sano dhexdooda dhalan hayaay baytulmaqdis inay xoreeyaan buu ilaahay u talagalay welidaa u fiirso culimada islaamku waxay leeyihiin caalamul islaami gaaladu markay qabsatay oo gaaladu ay gacanta ku dhigeen isticmaalka lagu sameeyey dadkii isticmaalkaa ku barbaaray iyo dadkii isticmaalkaas inta uu jiray dadkii hana qaaday ilaa ay ka baaba'aan oo ay ka soo baxaan jiil isticmaar aan aqoonin caalamul islaami xoroobi mahayo halkaasay masaladu la socotaa 40 sano ilaahay wuxuu tiiha ugu riday reer banu israa'iil dadkii la addoonsaday ee fircoon u addoonsaday inay baaba'aan oo 40kaas dad cusub ay dhashaan oo dee fircoon iyo waxa aan aqoonin iyaga ayuu ilaahay ugu talagalay inay baytulmaqdis xoreeyaan nimanka ka xoreeyaan sidii bayna noqotay 40 sano nabi muuse calayhi salaatu wasalaam 40 sano dhexdooda dhintay nabi haaruunna 40 sano dhexdooda dhintay dadkii markaa lahaa baytulmaqdis ma xoreyn karo oo dad naga awood badan baa jooga dadkii lahaana dhammaantood way baaba'een dadkii 40 sano dhashay baa hana qaaday oo 40 jir noqday dadkii baa baytulmaqdis markii dambe gacantii ka xoreeyay oo ka saaray bal masalada u fiirso arrin baa ku jirta meesha qaala alla wuxuu yidhi fa innahaa ardada muqadasada ah muxaramatun waa laga xarimay calayhim dushooda 40 sanatan 40 sano ayaa laga xarimay yatiihuuna xaal ay wareersanaan hayaan fil ardi dhulka dhexdiisa ay wareersanaan hayaan habeenkii oo dhan way socon jireen baa la yidhi habeenkii oo dhan waagu markuu beriyo meeshay ka guureen iyagoo taagtaagan bays arki jireen say u socdaan waa 40 sano 40 sano muddo yar ma ah ciqaab adag buu ilaahay saaray subxaanahu wa tacaala markay qoraxdu qabowda intay dhaqaaqaan yaa waxay ku talagelayaan caawo oo dhan inay sii socdaan say u socdaan waagu markuu beriyo bartay ka dhaqaaqeen bay taagtaagan yihiin sidaan bay isu daba wareegayaan caawo dhan 40kii sano ee sidaa ay ahaayeen wax alla wixii fircoon iyo isticbaadkiisa iyo addoonsigiisa wax alla wixii ku hana qaaday way baaba'een 40 sano dad baa dhalan hayay 40 sano hadda ogow ilaahayna raxmadiisu siiyey oo salwi iyo manni ayuu ilaahay u soo dejin hayay waxaasay iska cunayeen way dhalayeenoo marka way tarmayeen dadkii 40 sano dhashay ayaa hana qaaday dadkaasaa mas-uuliyadda markii dambe la wareegay iyagaa la wareegay dadkii hore oo dhanna ilaahay wuu baabi'iyey subxaana wa tacaala si ayna u dhihinba wax iskama celin karo kuwa yararka ayna u fasahaadinin bal hadda u fiirso falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin macnaheedu muxuu yahay mufasiriintu waxay leeyihiin nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaan waxani waa qoomkiisii weeye reer banu israa'iil nabi muuse waa dadkii uu ka dhashay markuu yidhi nabi muuse ilaahayow na kala bixi kuwan ee ilaahay uu yidhi 40 sano ay wareersanaan hayaan wuu naxay nabi muuse wuu tiraanyooday wuu walwalay waa walwalay oo dee wuxuu u walwalay reer banu israa'iil oo ilaahay uu ciqaabay oo 40 sano oo ciqaaba lagu riday taasaa nabiga qalbigiisa waxoogaa ta'tiir ku yeelatay
إلهي بالله هذا النبي موسى مرك فلا تأس على القوم الفاسقين بالي وفاسقين كوني هؤول ولين هؤو تيرانيون هؤو مرقين فلحك قد بالي والله أعلم.